munaasabadan hadhimo sharafeedka ah ee xubnaha guddida nabadeynta deegaanka Awrboogeysu u fidiyay hogaamiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa jagada madaxweynaha xisbiga mudane Muuse Biixi Cabdi waxa madasha ka soo qayb galay hogaanka sare xisbul xaakimka kulmiye xubno kamida golaha wasiirada siyaasiyiin waxgarad iyo marti kale wasiirada wasaaradaha khayraadka biyaha Baasha Cali Jaamac warfaafinta Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire iyo arrimaha gudaha Cali محمد وران عدي أي جوبتا كتشدي هذا الذي كهبونا. لما تيم بقاضان وين ما هاد نقينا عسومدن يسولوين تناسولويسين شركي أوربوغيسات يكيار عدية المهمة دوين سومال لانو لها ومالين روتي سومالي لانكوين أنا واحد هذا سومالي لان لبشر وهراء يقب صومي شروحها شر بيلو شر بيلاد يبضني قلبي دي لابرين توي كسعودين وريره وده دقنا شريين لكن لبشرون باصنتنا شركي برعو هي شركي بورمي waxaan qabaa shirka saddexaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhda gali doona inuu yahay shirkii Awrboogeyseed ee ugaadhiyahan injiile iyo kaskii qabe ay maxaan ku raahday heshiiska la gaadhay Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu u baahanahay in qof wal oo muwaadina oo Soomaaliland ku nool inuu helo xaqiisa iyo xuquuqdiisa inuu helo xaq uu leeyahay inuu u codeeyo oo doorto cid mathalaysa isagana waa ku waajib inakana waa inuu xaq weey wuxuu kaloo muwaadinku xaq u leeyahay inuu nabad ku seexdo oo ku soo tooso wuxuu xaq u leeyahay inuu waxbarasho helo wuxuu xaq u leeyahay inuu caafimaad helo waa xuquuq qaranka ka saaran muwaadinka meesha doonaba ha jiro si taa loo helo waxa loo baahan yahay doorashooyinka soo socda in fursad loo siiyo qof wal oo muwaadina inta galbeedka muddo badan bay haysatay horta bariga ee looga baahan yahay talaabada ugu horeysa waxa waa diiwaangelinta waxa loo baahan yahay in geed sariya geed hoosaba loo karo sidii loogu suurtagelin lahaa qof waliba inuu isdiiwaan geliyo marka hore waa ilaahay mahadii waa maalin farxad badan oo ididiilo u leh Soomaaliland iyo qaranka kan waxa hubaala Soomaaliland markii ay dhalatay ee ay bariga u kacday waxay ku socotay sida diinkay u socotay aad bay u gaabinaysay xigmad baa ku lamaanayd xigmadaas oo ahayd dadka reer Soomaaliland inay dhammaan wixii waqtigii la gooyay jooga mooyeen intii kale in la iska dhaadhiciyo oo la isu sheego oo la isaga waramo oo si wanaagsan oo qurux badan loogu wada qanco in Soomaalilandnimadu ay ku hirgasho ee aanay cunfi iyo way iska dhalatay iyo way iska soconaysaa midna aanay ku hirgelin waxa maanta taariikhda ay qoraysaa halkii u dambeysay ilaa darafkii u dambeeyay Soomaaliland in maanta halkan la wada fadhiyo iyadoo la isku qanacsan yahay oo lagu wada qancay oo nin walba isagu iskii iyo maskaxdiisa isagoo maankiisa qaba aynu isku raacnay in Soomaaliland aynu dibadda u taagno waa ilaahay mahadi waana wax ilaahay loogu mahadnaqo oday Cabdinuur oday Yaasiin iyo Maxamed Xayd iyo Caaqil Migiste iyo Maxamed Garaad ayaa ka mahadnaqay martiqaadka uu fidiyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyagoo ka waramayna ahmiyadda ay leedahay nabadgelyadu waxaan casuumadda tan sharafta leh maamuuska leh waa ka mahad celinayna waxaanu dareemaynaa sida naloo qiimeynayo sida naloo dareemayo sida naloo soo dhaweynayo loo jecel yahay in aanu hawlaha dalka ka socda ee aanu ka midnahay aanu ka qayb qaadano ragga iyaga halkan dhinacan ka soo jeeda
waxaanu u badannahay raggii ka soo shaqeeyey dhawaanahanba ee soo abaabulay shirarkii ka dhacay bariga diiwaangelinta waa kii cabdinuur uu yidhi kadib baanu hadlaynaa anigu waxaan leeyahay diiwaangelintii waanu gelaynaa haddaad xusbiga tihiinna waanu idinla qaadanaynaa oo waa idinla dooranaynaa madaxweynaha mustaqbalka waa idinla dhisaynaa waxaanu doonaynaa ka dambeeya inaydaan nagu qabsan laba qodob uun baan qolada kulmiye u sheegaya horta dee wasiirada iyo shirarka la qabtay rag wasiiraa iyo xukuumadda ayaa howl weyn door weyn ka qaatay ceelka markaad qodayso ninka kula qodo oo biraha kuu keena oo basharafadaha kuu keena dee hadhow geelisu hadduu soo taago geelisa sudhaan la horaya isagu taasu waa taa qodobka labaadna waxa weeye muuse waa gaalqaad adnaa dhulbahantada ayaa ninka gaala qaada taasuna waa adar iyada waa option kale oo caaqiba leh gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa jagada madaxweyne xisbiga mudane muuse biixi cabdi ayaa si qoto dheer uga warramay iskaashiga bulshada faa'iidada ay ka dhaxlaan bulshada qaran ahaan iyo ummad ahaanba isagoo hambalyo iyo bogaadina u jeediyey guddida nabadeynta deegaanka Awrbogeys iyo shirkii dhowaan deegaanka ka qabsoomay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maatinkiina shirarka aad iyo aad baan u dhageysanaynaa ugu duwacsanahay raayigiina iyo wixii tala aad noo keenteen dadka dheem baynu helo kala maqan haddaad timaadeen la kalgacal iyo labaad isku dhaweynaa soo dhawaada Somaliland waxaad moodaa marka bariga sool iyo sanad bari laga hadlaaya dadka qaarkii taariikhda aad u wada yaqaano waxa hubaala mujaahidka la hadalhayay waa kula haydeen oo ka mid baa haydeen oo rag badan baa ku dhintay jabhadii iyo halgankii iyo dib u xoreyntiiba oo aan magacaashooda dusha laga wadayo xisbiga kulmiye asaaskiina kooba ka haydeen odayaashii aasaasay ee bilaabay ee taariikhda ugu qoran baa ka mid tihiin oo fagaraadee kooka ahaa marka taariikhda Somaliland layda kama laha taladeedana waa leedihiin layda kama laha taasaynu inoo balana waxaynu ku dhaqanaa waa dastuurka waa midnimo iyo dalkeennu wada maamulano si siman oo loo siman yahay aynu wax wada qaybsanaa hadday tala tahay iyo haddii ay la horumar tahay